السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جيلي أيا مانتا دمبال همبليا أدري مدحوينها عصوب لو دورت دلكا كونغو دينيس سازو إنجيزو. مدحوينها جمهورية دمبال كيسا وحا وغرجي قول برواقو إن وكوغوليستو حلكاسي لو دورتي. madaxweyne geelle waxa kale uu yiri in marka lagu doorto hogaanka Congo waxa ay ka turjumaysaa way aragtinimadaada oo aad ku kasbatay kalsoonida shacbiga dalkaasi. Denis Sassou Nguesso ayaa ku guuleystay wareegga koobaad ee doorashadii madaxtinimo ee ka qabsoontay dalka Congo isagoo helay 60.9 iyo 30 codadka dadka dhiibtay. waxa ay maanta ahayd maalin xusuus leh oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele uu soo gaaray golaha raadiyaha iyo telefishinka Djibouti waxaana madaxweynaha booqashadiisa ku weheliyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudan Cabdulqaadir Kaamil Maxamed wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo warisgaarsiinta mudan Ali Xasan Bahdoon iyo qaar kamid ah xubnaha xukuumadda. madaxweynaha jamhuuriyadda kolkii uu soo gaaray golaha raadiyaha iyo telefishinka Djibouti waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay dhammaan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha kala duwan ee irtideeda. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faalintaas ka badan. maanta oo khamiis ah ayaa u ah maalin taariikhi ah faafinta iyo fogaal araga ee dalkeena taasi oo soo afjaraysa isticmaalka qalabkii hore loo yaqaanay analogy isla markaasina loo gudbayo marxalad cusub oo qalabka casriga ee loo yaqaano numeriga. qalabkaasi casriga ah ee TNT ayaa ah mid u asmaxaya daawadayaasha in ay helaan sawir iyo cod tayadoodu ay aad u sareyso. sidaasi daradeed golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti ayaa soo qaban qaabiyay munaasabad aad u ballaaran taasi oo uu gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele. madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele kolkii uu soo gaaray golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti waxa si diiran u soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudan Cabdulqaadir Kaamil Maxamed wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo warisgaarsiinta mudan Ali Xasan Bahdoon agaasimaha guud ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti mudan Cabdulqaadir Axmed Idris oo ay weheliyaan kalkaaliyaashiisa. munaasabadaasi waxaa sidoo kale ka soo qayb qaatay dhammaan shaqaalaha RTD-ga oo si tiro badan iskugu soo baxay si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda. sidoo kale waxaa munaasabadaasi laga qaaday heeso ka xoog waramaya ahamiyadda uu mashruucaasi u xambaarsan yahay. jamhuuriyadda Djibouti ayaa ah dalkii saddexaad ee ka gudbaya farsamada analogiga. dalkeena ayaa isagu tixgeliyay waqtigii loo qabtay 24 Juun 2014 ee midowga caalamiga ee warfaafinta. waxaana xusid mudan in horumarkaasi aanu maantaan gaadhnay ay ku suura gashay dadaalkii farabadnaa ee ragga iyo haweenka ka hawlgala waaxda faafinta iyo fogaal araga. aqoon fanoota yale warar sugan oo la hubo wadi gelin madadaalahe idinkaga faafshayo albawla qaranka weeyaan maantana heerkan casriga dunidu ku hayaantayba kii hore uga gudubnayo idaacadda horumarkeyga ogaashada dhaqaajay. sidaan ognahay idaacadda ayaa maanta soo gaadhay in ay lahaato 6 shan oo 24 saacadood socda waxaana ay sidoo kale ka mid yihiin satiriidka carabsaadka waxaana laga heli karaa oo kale internetka.
kasokow saddexdaa sheen ee qaran RTD waxa ay idiin soo bandhigaysaa shan laga sii dayn doono barnaamijyada waxbarasho ee loogu talagalay dhalinta taasi oo ka qayb qaadan doonta horumarka dalka waxaad nagu hadlaysaa sidoo la dhowriyo shaqeega loo yahay annagana hadiyo jeer waxaad nagu hadlaysaa sidoo la dhowriyo shaqeega loo yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gille ayaa intaasi kadib si rasmi ah daaha uga rogay studio-ga cusub ee ku qalabeysan qalabka casriga ah iyo dhaqaajinta telefishinka nimeriga ee habka cusub ee lagu howlgalayo studio-gani cusub waxaa si toos ah uga bixi doona barnaamijyada iyo wararka doorashada madaxtinimo dhammaan shaqaalaha RTD-da ayaa si weyn u soo dhaweeyay booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gille waxaa halkaasi heeso ka tumiyay hobolada Gentaloga kuwaasi oo ka xoog waramay dadaalka ka dhashay aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda kolkii uu madaxweynuhu soo gaadhay RTD-da waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed wasiirka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo warisgaarsiinta mudane Cali Xasan Baadoon iyo agaasimaha guud ee RTD-da mudane Cabdulqaadir Axmed Idris waxaana madaxweynuhu uu gacan qaaday dhammaan shaqaalaha RTD-da ee halkaasi ku sugnaa waxaan intaasi kadib uu qodobka ka jiray studio-ga cusub ee lagu qalabiyay nimeriga isagoo soo indheeyay qololka kala duwan ee uu ka kooban yahay waxaana mas'uuliyiintii ku sugnaa studio-gaasi ay madaxweynaha jamhuuriyadda macna faahfaahsan ka siiyeen habkani cusub ee nimeriga ee xagga warisgaarsiinta nabadado oran ku ishaarne
iyo beriba ana kugu sonoon talala kugu aamine abo humanti iyo beriba ana kugu sonoon talala kugu aamine أجيب إلهي كاغي دعاء أقبل يجيب إلهي كاغي يجيب إلهي كاغي إلهي كريم إلهي كريم إلهي كريم sidoo kale mas-uuliyiintu waxay madaxweynaha jamhuuriyadda uga macno bixiyeen habkani cusub ee nimiriga ee ku howlgalayo raadiyooga telefishanka qaran ee Djibouti. danjiraha jamhuuriyadda Djibouti oo fadhiya magaalada Paris ee dalka Faransiiska Ayad Musa Yaxya ayaa qabanqaabiyay munaasabad ballaadhan oo lagu xusayo buugga ka xog waramayay taariikhda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle. munaasabadaasi waxaa sidoo kale ay qayb ka ahayd furitaanka ama qodobka jarka qolol cusub oo laga dhisay safaaradda Djibouti ee dalkaasi Faransiiska. munaasabadaasi waxaa uu joogay diblomaasiyiin mas-uuliyiin sarsare iyo weliba qurba joogta reer Djibouti ee ku nool magaalada Paris. geestiisa qoraaga buugga ka xog waramayay ee taariikhda madaxweynaha jamhuuriyadda Shariif Wazani ayaa wax badan ka iftiimiyay waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda oo uu suuro gelinaya dadweynaha in wax badan ay ka akhristaan taariikhdiisa. munaasabadaasi waxaa u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf. Cumar Geelle oo qoray qoraaga Shariif
kadib mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadaasi ayaa iyagu Monsieur le député, monsieur le sénateur, président du groupe d'amitié Djibouti-France. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à l'ambassade de Djibouti. En effet, c'est un plaisir pour moi de revenir ici. Et je vais lire avec intérêt le livre. Anigo Fadme Ibrahim Riala oo maanta ka soo qayb galnay furitaankan safaaradeena iyo buugeena maanta qaaliya waa kaas. Waa caderne, je m'appelle Jamila Aden Chide. Voilà, j'ai le livre. Je vais bien le lire. Je sais que c'est une histoire très intéressante. Merci, Monsieur le Président. Un petit message pour les téléspectateurs de la RTD. Vous voyez la folie qu'il y a autour du livre. J'ai une histoire de Djibouti. Donc j'espère que chez vous, ça va aller encore plus chaud qu'ici. Il y a du monde qui veut lire l'histoire de Djibouti. Pour une autre cas où on ne sait jamais... wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf ayaa maanta qaabilay xogeeye dowladeedka qaabilsan horumarinta francophonie ee dalka faransiiska Andrew Valini kulanka labada dhinac waxaa lagu soo qaaday iskaashiga iyo xoojinta nidaamka jaamacadeed ee afka faransiiska iyo sidoo kale dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada Jamhuuriyadda Djibouti ayaa iskaashi wanaagsan la leh hay'adda caalamiga ee francophonie iyo hirgelinta barnaamijyo waxbarasho oo laga dhaqaajin doono Jamhuuriyadda Djibouti intii lagu guda jiray kulankaasi wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Djibouti ay soo dhaweyn wanaagsan u rajeynayso xogeeye dowladeedka horumarinta francophonie sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf oo weheliyo danjiraha Jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya magaalada Paris ahna ergeyga joogtada ah ee hay'adda UNESCO Ayad Musa Yaxya ayaa kulan la yeeshay agaasimaha guud ee hay'adda UNESCO Madam Irina Bokova kulanka wasiirka arrimaha dibadda iyo agaasimaha guud ee UNESCO waxa ay ka wada hadleen cilaaqaadka ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo hay'adaasi agaasimaha guud ee UNESCO ayaa ku hambalyeysay Jamhuuriyadda Djibouti talaabada dib u habeynta ahayd ee ku saabsan tayeynta iyo xoojinta hawlaha shaqo ee hay'adaasi ay qabato wasiirka arrimaha dibadda ayaa halkaasi ka cadeeyay ku xidhnaanshaha Jamhuuriyadda Djibouti ee hay'adda UNESCO oo qayb ka ah qiimeynta hawlaha ku aadan kobcinta tayeynta waxbarashada iyo horumarinta haweenka ee dhinacyada dhaqanada kala duwan iyo waliba wada xaajoodka nabadda agaasimaha guud ee hay'adda UNESCO ayaa uga mahadcelisay Jamhuuriyadda Djibouti taageerada aadka u weyn ee ay ka geysatay hawlihii ku saabsanaa turjumaadii warbixintii luqadda Faransiiska lagu soo qoray ee hay'adda UNESCO ee ku saabsaneed arrimaha sayniska waxayna ku dartay intaasi in ay diyaar u tahay iskaashi badan oo ay la yeelato Jamhuuriyadda Djibouti ee dhinacyada waxbarashada dhaqanka iyo sayniska madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda shirkad gaar ah oo laga leeyahay dalka Singapore shirkadaasi oo la yiraahdo Group Singapore Wilmar oo uu madax ka yahay Kyuk Hong oo ah agaasimaha guud ee shirkadaasi oo takhasus u leh soo saaridda saliid laga dhalinayo timirta waxayna ku taalaabsadeen sidoo kale asaaska warshad soo saarta saliidaasi kulanka labada dhinac waxaa lagu soo qaaday abuurka shirkad soo saarta saliidaasi timirta laga dhalinayo oo laga hirgelinayo dalka waxaana kulankaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo agaasimaha guud ee shirkadaasi Group Singapore u joogay qaabilsanaha mashaariicda madaxtooyada Alexis Mohamed oo xusay ahmiyadda ballaaran ee uu ku fadhiyo mashruucan isagoo ka qayb qaadanaya abuurka shaqooyin Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta qaabilay wafdi uu horkacayo xogeeye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Buduul Xasan Buduul waxaana wafdigaasi kamid ahaa gudoomiyaha kubadda cagta ee caalamiga ee FIFA kulankaasi waxa uu joogay xogeyaha guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Nagiib Cabdalle iyo xogeyaha guud ee xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha mudane Wahiib Xamudu iyo waliba gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka mudane Suleymaan Xasan gudoomiyaha FIFA ayaa socdaal ku maray dalal kamid ah qaaradda Afrika waxaana uu kusoo gabagabeyn doonaa booqashadiisa dalka Suudaan waxaana uu sheegay gudoomiyuhu inuu soo dhaweeyo booqashada uu ku yimid Jamhuuriyadda Djibouti waxaana uga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed soo dhaweynta diiran ee uu fidiyay gudoomiyaha FIFA waxa uu ka warramay oo kale tababarada dhalinta ee dhinacyada isboortiga iyo sidoo kale horumarinta waxbarashada ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa u rajiyay gudoomiyaha FIFA soo dhaweyn wanaagsan waxaana uu sheegay in kubadda cagtu ay kaalin wanaagsan kaga jirto horumarka dhalinta iyo dal intaba gabagabadii kulankaasi waxay labada dhinac isweydaarsadeen hadiyado ka turjumaya soo dhaweynta gudoomiyaha FIFA
wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane xuseen axmed ayaa saaka saxiix heshiis qalin kula duugtay wakiilka hay'adda PNUD iyo dajiraha dalka Japan u fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti Tatsuo Arai waxaana heshiisyadaasi ay dhigayaan abuurka mashaariic ka qayb qaadanaya shaqo abuur oo ay maalgelisay dalka Japan. Fatma Saalax ayaa ka waramaysa. wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane cabdi xuseen axmed ayaa maanta qalinka ku duugay heshiis ku saabsan mashruuca loogu magac daray ENDF oo ay la saxiixdeen wakiilka PNUD madam Valerie Cliff iyo danjiraha dalka Japan u fadhiya Djibouti Tatsuo Arai. munaasabada heshiis saxiixaasi waxaa u joogay wasiir dowlaha iskaashiga caalamiga Axmed Cali Silay, xogayaha guud ee wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka Maxamed Cali iyo sidoo kale la taliyaha wasiirka. mashruucani ay maanta saxiixeen saddexda dhinac waxa uu ku saabsan yahay ama lacagta ku baxaysa ay dhan tahay $1 milyan oo ay bixisay dowladda Japan, waxaana uu loogu talagalay kor u qaadida fursadaha horumarka dhaqaale iyo sidoo kale in uu shaqo abuur laga helo xaq qaran iyo xaq degmo intaba. mashruucani waxaa sidoo kale loogu talagalay meelmarinta xeer lagu howlgalo oo ku saabsan shaqo abuur iyo sidoo kale in uu hoos u dhigo camal la'aanta dalkeena. maray halkaasi ka hadashay wakiilka PNUD waxa ay sheegtay in mashruucani ay maalgelisay dowladda Japan oo lacagta ku baxaysa ay dhan tahay bay tiri $1 milyan loogu talagalay muddo sanad ah. waxaan hambalyo u soo jeedinayaa bay tiri wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane cabdi xuseen oo isagu ku dadaala shaqo abuur. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay danjiraha dalka Japan u fadhiya Djibouti Tatsuo Arai waxa uu sheegay in mashruucani loogu talagalay inuu kor u qaado shaqo helida dhalinta iyo sidoo kale in tababar la siiyo dhalinta oo xagga kalluumaysiga ee dhalinta ku nool gobolada waqooyi. waxaan garowsanahay in camal la'aantu ay tahay caqabada hor yuurata xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti oo iyadu ku dadaasha hoos u dhigida saboolnimada. wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane xuseen axmed oo intaasi kadib halkaasi ka hadlay waxa uu xusay taageerada hay'adda PNUD ay la garab joogto xukuumadda Djibouti, waxaana sidoo kale uu uga mahadceliyay mas'uuliyiinta jiga ee Japan maalgelinta saxiixa mashruucaasi oo ka qayb qaadanaya dhimida camal la'aanta iyo shaqo abuurka intaba. waxaana yidhi wasiirku Nous allons procéder à la signature du document cadre du projet UNDAF. waxa uu yiri in heshiiskani uu yahay mid saddex geesood ah oo aan qalinka ku kala duwanay buu yiri annaga iyo wakaaladda PNUD iyo sidoo kale danjiraha dalka Japan u fadhiya Djibouti. mashruucani waxaa loogu talagalay buu yiri in uu shaqo abuur laga helo, waxaana intaasi raaciyay wasiirku in hay'adda PNUD ay mar walba iyadu garab joogto wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ujeedada ka dambeysa mashruucani uu yahay hoos u dhigida camal la'aanta dalkeena haday ahaato xaq qaran iyo xaq degmo intaba. kaasi wuxuu ahaa wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane cabdi xuseen axmed. ciidamada booliiska qaran iyo sanduuqa qaran ee daryeelka bulsho ayaa maanta wada saxiixday heshiis iskaashi. agaasimaha sanduuqa qaran iyo daryeelka bulsho Marwo Hana Faarax Xasoowe iyo agaasimaha guud ee booliiska qaran Colonel Cabdilaahi Cabdi Faarax ayaa gudoomiyay munaasabada heshiiskaasi saxiix. ujeedada heshiiskaasi saxiix ayaa ah la socodka nidaamyada caafimaad ee ciidamada iyo qoysaskooda intaba, waxaana heshiiskaasi uu ahmiyad gaar ah ugu fadhiya ciidamada booliiska qaran oo ka faa'iideysan doona caymiska guud ee caafimaadka, waxaana uu u suuragelinaa in ay iska daweyn karaan dhammaan dhakhtarada iyo xarumaha caafimaad ee dalka, gaar ahaan xarumaha caafimaad ee ciidamada booliiska qaran, halkaasi oo ay kaga faa'iideysan doonaan baaritaano caafimaad oo si bilaash ah loogu sameynayo. iyadoo ay la xidhiidho la dagaalanka haraadka, agaasimka biyaha ee dhulka reermiyiga Marwo Sucaad Suleymaan Axmed ayaa gaadhay tuulada Casaceela oo uu weheliyo briefing ku-xigeenka gobolka Dakhil, waxaana booqashadaasi ay tahay sidii ay usoo indheindheyn lahayd howlaha shaqo ee qasaabyada biyaha ee tuuladaasi, waxaana howlahaasi la dhaqaajiyay muddo 2 bilood laga joogo, waxayna qayb ka yihiin dadaalka xukuumadda ee hirgelinta ceelal iyo biyo xidhano laga dhisayo tuulooyinka gobolada dalka gudihiisa, gaar ahaan dhulka reer miyiga. xagga iyo ciyaaraha
galabtii waxaa garoonka ciyaaraha ee guuleed ay ciyaar ku dhex martay xulka qaran ee Djibouti iyo xulka dalka Liberia waxaana ciyaartaasi ay ku dhamaatay 1 gool iyo ibir waxaana guusha raacday xulka dalka Liberia waxaa xusid mudan in ciyaartaasi uu joogay gudoomiyaha FIFA oo isagoo booqasho ku jooga dalka daawadayaal waxa aad imikana aad la socon doontaan warka gaarka ah ee ku saabsan isku diyaarinta doorashada madaxtinimo ee 8 bisha Abriil ee nagu seedan waxaana TV-ga qaran ee irtideeda ku cusub studio heer sare ah oo casriyeysan kaasi oo kordhin doona tayada iyo barnaamijyada TV-ga qaran waa kan Maxamed Cabdiraxmaan oo aan idin tabinayo si uu idin la socodsiiyo wararka gaarka ah ee doorashada ee la socod wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا وركينا غاركا ee doorashada kaasi oo aan si toos ah aanu idin kasoo tabinayno studio-ga cusub ee RTD waxaana la socoteen daqiiqado oo ka hor rakibaada cusub ee qalabkan casriga ah oo iyagu ah kuwii u dambeeyay iyo qaybo cusub oo kamid ah telefishinka RTD-da kuwaasi oo si rasmi ah madaxweynaha jamhuuriyadda uu qodobka uga jaray maanta waxaana kamid ah studio-gan labaad ee aad imika kala socotaan wararka gaarka ah ee doorashada qodobada haddaba ugu muhiimsan ee aad warkan gaarka ah ee doorashada kula socon doontaan waxaa kamid ah dhaqaajinta rasmiga ah ee ololaha doorashada madaxtinimo ee sanadkan 2016 oo caawa gaar ahaan saqbarka bilaami doonta waana sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha xasan cumar maxamed oo warbixin arintaasi ku saabsan siiyay telefishinka qaran €15 336 PRMI ee ku wajahan qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee 8 bisha Abriil 2016 ayaa bilaami doonta maalinta bari ah ee Jimcaha oo bishu ay ku beegan tahay 25 bisha Maars waxaana ay dhammaan doontaa maalinta Arbacada ee bishu ay tahay 6 Abriil ka qayb qaadashada 6 musharax doorashada madaxtinimo ayaa ah markii ugu horeysay taariikhda dalkeena taasina waxay ka turjumaysaa dimuqraadiyadda wanaagsan iyo biseelka siyaasadeed ee siyaasiyiintu ay gaareen waxaana dhammaantood waajib ku ah dadweynaha iyo murashaxiintaba dhowridda dimuqraadiyadda waxaana dhammaan murashaxiinta ugu baaqaya in inta lagu jiro ololaha ay u dhaqmaan si mas'uuliyad ay ku dheehan tahay kalsooni raadintooduna ay waafaqsanaato xeerka dhaqanka ee murashaxiinta u yaala iyo dhowridda xeerasha asaasiga ee dalkeena waxaa murashaxiinta laga rabaa oo kale in ay ka gaabsadaan wax kasta oo dhibaateynaya amniga iyo xasiloonida kuna xadgudbaya xeerasha u yaala dalka aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan ka dalbayaa dhammaan muwaadiniinteena in ay si ballaaran uga qayb qaataan doorashada waayo codbixintu waa xaq waana ta ugu wanaagsan ee aad ra'yigaaga ku dhiiban karto adigoo gudanaya waajibkaaga muwaadininimo waxaa sidoo kale xasuusinaya dadweynaha in qaybinta kaararka codbixinta ee bilaabantay 13 bisha February kana socotay dhammaan dalka oo dhan ay sii socon doonto ilaa iyo 4 bisha Abriil saacadu marka ay tahay 6 maqribnimo dhammaan xarumaha laga qaadanayo kaararka codbixinta ayaa furan maalin walba marka la raaciyo maalimaha fasaxa isla markaasina furnaan doona 24 saacadood ilaa iyo 4 bisha Abriil maamulka prefecture-ka ayaa iyaguna diyaar idin ah sidii aad sida ugu dhib yar ugu soo qaadan lahaydeen kaararkiina codbixinta isla markaasina aad waajibkiina muwaadiniinimo gudan lahaydeen oo weheliyo prefega magaala madaxda Muumin Axmed Sheekh ayaa gaaray arrondismoyada magaala madaxda si ay u soo kormeeraan qaybinta kaararka codbixinta iyo soo bandhigida liisaska doorashooyinka ee arrondismoyada dhexdooda gabagabadii kormeerkaasi wasiirka ayaa aad u soo dhaweeyay qabsoomida hawlaha qaadashada kaararka codbixinta waxaanu intaasi raaciyay in ilaa iyo maanta tiro aad u muhiim ah oo kaararka codbixinta la soo qaatay isla wararkan gaarka ee doorashooyinka waxaa kamid ah wafti wasiira oo ka kooban 4 wasiir ayaa shalay gaaray gobolka Dikhil waxaana boqoshadaasi ay ahayd mid lagu baraarujinayay bulshada reer Cokaar qaadashada kaararka codbixinta waayo muwaadin walba waxa waajib ku ah in uu qaato kaarka codbixinta si uu u dhiibto codkiisa doorashada madaxtinimo ee qabsoomaysa 8 Abriil sanadkan kolkii hadaba ay wasiiradu gaareen gobolka Dikhil waxa si diiran u soo dhaweeyay prefega iyo gudoomiyaha maamul hooseedka afartaasi wasiir ayaa ah wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cuki xogay dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul wasiirka guriyeynta
mudane maxamed muuse ibraahim balala iyo ugu dambeyntii wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta muuse axmed xasan wasiiradu waxay kula kulmeen bulshada reer cukaar xafiiska prefectureka waxaana lagu wacyigeliyey in ay doontaan kaararka codbixinta oo ah waajib saaran muwaadin walba dhalinta cuqaasha iyo haweenka gobolka dikhil ayaa ka qayb qaatay kulankaasi waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin ololaha baraarujinta bulshada ee ku saabsan qaadashada kaararka codbixinta xubnaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee Seyniga ee doorashooyinka ayaa maalintii shalay ee Arbacadii isugu yimiday si ay ula socdaan habsami u socodka howlaha qaybinta kaararka codbixinta iyo soo bandhigida liisaska doorashada iyo xafiisyada lagu codeynayo ee gobolada koonfurta dalka waatan fallo intaasi ka badan Seyniga ayaa socdaalkooga shalay ka war helay heerka qaadashada kaararka codbixinta ee gobolada Dikhil iyo Cali Sabiix iyada oo ay la xidhiidho socdaalka gobolada dalka gudihiisa ee isaguna la xidhiidho diyaargarowga doorashada madaxtinimo ee 2016 oo guddiga Seyniga ayaa ugu horeyn gaaray gobolka midnimada kolkii ay halkaasi gaareen xubnaha guddigaasi oo uu hormood ka yahay Ismaaciil Cabdi Xirsi waxa ay la kulmeen gudoomiye ku-xigeenka qaybta Seyniga ee gobolka Dikhil sidii ay uga warheli lahaayeen xaaladda xafiisyada Seyniga ee ku yaala xarun goboleedka gobolkaasi waxaana intaasi kadib gudoomiyaha guddiga Seyniga Ismaaciil Cabdi Xirsi uu su'aalo weydiiyay xubnaha Seyniga ee Dikhil waxaana uu wax ka weydiiyay daryeelka xafiisyada iyo dayactirka qalabka waxaana intaasi kadib uu helay macluumaad daruuri ah oo ku saabsan sida ay u shaqeyso xubintaasi Seyniga ee gobolka Dikhil intaasi kadib kooxaha guddiga doorashooyinka qaran ee madaxa bannaan ayaa gaaray prefectureka gobolka midnimada waxaana ay la kulmeen prefectureka gobolka Dikhil Mohamed Sheekho Xasan waxaana ay wada galeen shir ku saabsanaa oo lagaga hadlayay sida ay u socdaan howlaha qaybinta kaararka codbixinta iyo tirada codbixiyayaasha sajilan ee qaatay kaararkoogii prefectureka gobolka Dikhil ayaa si guud uga hadlay xaaladda intaana uu sheegin in boqolkiiba 46.87 codbixiyaal ah oo sajilna ay qaateen kaararkooga codbixinta kooxda guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ku guda jira socdaalkooga ayaa gaaray sidoo kale gobolka Cali Sabiix kolkii ay halkaasi gaareen waxa si diiran u soo dhaweeyay prefectureka gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casoowe iyo gudoomiye ku-xigeenka maamul goboleedka waftiga Seyniga oo horkacayo gudoomiyahooga Ismaaciil Cabdi Xirsi ayaa qabtay shir warbixin ah oo lagu qabtay gobolkaasi waxaana dhex martay labada dhinac dood muhiim ah gees kale sida ku dhigan warbixinta qiimeynta ee prefectureka gobolka Cali Sabiix boqolkiiba 60 codbixiyaal oo sajilan ayaa qaatay kaararkooga codbixinta intaasi kadib waxa xigtay booqasho kormeer ah oo lagu soo maray xafiisyada lagu qaybinayo kaararka codbixinta waxaana booqashadaasi ku helinayay prefectureka gobolka waxaana guddiga Seynigu ka war helay howlaha ay wadaan maamulka prefectureka oo si wanaagsan oo habsami leh ay u wadaan ujeedada laga lahaana waxa ay tahay la socodka habsami qabsoomida howlahaasi qaybinta kaararka codbixinta waxaana halkaasi si isdaba joog ah dadku ay u hortaagneen xafiisyada laga qaadanayo kaararka codbixinta taasi oo ka turjumaysa rabitaanka codbixiyayaasha xubnaha guddiga Seyniga ayaa ka wada sheekaystay arintaasi waxaana isla markaasina ay ka wada sheekaysteen xaaladda soo dhaweynta iyo qaybinta kaararka codbixinta guddiga Seyniga ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ragga iyo haweenka ka howlgala xafiisyada prefectureka oo si wanaagsan u shaqeynaya sidii ay dadka ugu fududeyn lahaayeen qaadashada kaararka codbixinta waxaana ugu dambeyn aan oran karnaa in socdaalkaasi koowaad iyo wada hadalkaasi dhex maray xubnaha Seyniga iyo prefectureka gobolada koonfureed ay suuro galiyeen in laga wada xaajoodo dhammaan qodobada ku wajahan oo diyaargarowga doorashada madaxtinimo ee 8 bisha Abriil wafdi wasiiraha oo ka kooban 4 wasiir ayaa shalay gaaray gobolka Dikhil waxaana booqashadaasi ay ahayd mid lagu baraarujinayay bulshada reer Cukaar qaadashada kaararka codbixinta waayo muwaadin walba waxa waajib ku ah in uu qaato kaarka codbixinta si uu dhibto codkiisa doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomaysa dalkiina 8 bisha Abriil sanadkan kolkii ay wasiiradu gaareen gobolka Dikhil waxa si diiran ugu soo dhaweeyay prefectureka iyo gudoomiyaha maamul hoosteedka afartaasi wasiir ayaa ah wasiirka waxbarashada qaran Dr. Jaamac Cilmi Cokiye xogay dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul wasiirka guriyeynta mudane
maxamed muuse ibraahim balala iyo ugu dambeyn wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane muuse axmed xasan wasiiradu waxay kula kulmeen bulshada reer cukaar xafiiska prefectureka waxaana lagu wacyigelinayay in ay doontaan kaararka codbixinta oo ah waajib saaran muwaadin walba dhalinta cuqaasha iyo haweenka gobolka dikhil ayaa ka qayb qaatay kulankaasi waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin ololaha baraarujinta bulshada ee ku saabsan ama ku wajahan qaadashada kaararka codbixinta iminkana haddii aanu ka hadalno siiniga caawa ayaa ah fursad aanu idinku barayno kuma ay yihiin siinigu sideebay u dhigan tahay iyo sideebay u shaqaysaa guddiga siinigu waa tan qormo ka xog waramaysa qodobkaasi guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa ah waax qaabilsan kormeerka iyo la socodka doorashooyinka ka qabsooma dalka guddigani ayaa ah mid lagu asaasay dhegelay soo baxday 2010 guddiga qaran ee siiniga ayaa ka kooban 13 xubnood oo kala ah wakiilo ka socda murashaxiinta asxaabta siyaasadeed iyo kuwa madaxa bannaan guddigani ayaa ah mid looga baahan yahay in uu howlgalo 9 cishood ka hor taariikhda loogu talagalay doorashooyinka sidoo kale waxa uu qaabilsan yahay la socodka hirgelinta qalabka iyo dukumeentiyada doorashooyinka iyo xubnaha ka howlgalaya xafiisyada codbixinta guddiga siiniga ayaa xafiis joogta ku leh guriga ummadda halkaasi oo ay ku qabteen 10 Janvier aanu soo dhaafnay kulankoodii guud ee koobaad si ay u soo doortaan gudoomiye guddigu waxa uu gudoomiye magacaabay mudane Ismaaciil Cabdi Xirsi oo hore u ahaa xaakin kulanku guddigu waxa sidoo kale soo doortay xafiiska fulinta iyo gudoomiyeyaasha ku-xigeenka ah ee qaabilsan gobolada dalka gudihiisa su'aal la isweydiin karo waxay tahay kuma ay yihiin ragga iyo haweenku ka kooban yahay guddigaasi la composition de la CENI est tripartite voire même quadrapartite gudoomiyaha guddiga siiniga mudane Ismaaciil Cabdi Xirsi oo su'aashaasi ka jawaabay ayaa sheegay in guddigu ka kooban yahay 3 ilaa 4 qaybood xubno ay soo doorteen golaha baarlamaanka wakiilo ka socda xukuumadda garyaqaano ama garsoorayaal iyo wakiilo ka socda murashaxyada tartamaya gees kale sida ku xusan dastuurka jamhuuriyadda guddiga siiniga waxa uu dhan nidaamka qaybinta awoodda ee dastuurka dalkeena xubnaha guddiga siiniga kadib marka la soo doorto ee la dhaariyo iyadoo guddigu yahay oo shir gudoomiye ka yahay ka gudada weyn ee kana mid ka ahna xubnaha guddiga waxa ay soo doortaan gudoomiye les doyens des membres ayant prêté serment et désigné élisent un président iyaga oo ka madax bannaan howlgalkooda guddiga siiniga ayaa si wada jir ah ula shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada u xil saaran qabanqaabada doorashooyinka hase yeeshee siinigu waxa uu door weyn ku leeyahay in doorashadu sida ugu fiican u qabsamto run ahaantii guddigan ayaa ah xubnaha u xil saaran kormeerka howlaha qabanqaabiyaha oo iyadu ah wasaaradda arrimaha gudaha les fonctionnements quotidiens de la CENI gudoomiyaha siiniga oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in howlgalka joogtada ah ee guddiga siiniga ee waaxda gobolada dalka gudihiisa gudoomiye ku-xigeen walba uu ku xidhan yahay koox yar oo gobolkaasi ka soo jeeda si uu u meel mariyo xafiiskiisa maamul qaabka howlgalkuna waa mid ka jawaabaya qodobada u yaala guddi walba gees kale nidaamka go'aanada loo qaadanayo ayaa ah kuwa ku xusan dhegelay guddiga qaran ee madaxa bannaan waxaa ka go'an in uu si xaq ah u ilaaliyo doorashada la voix du président est prépondérante sida ka duwan dalal badan oo caalamka guddiga siiniga ee Djibouti ayaa ah mid gebi ahaantii ay maalgeliso dowladda Djibouti oo haba yaraatee wax maalgashi ah aan dibadda ka helin waana guddi hawlihiisa shaqo ay ku kooban yihiin oo kaliya marka ay jirto doorasho les choses qu'il faut savoir et qui caractérisent ugu dambeyn gudoomiyuhu waxa uu yiri waxa xusid mudan in aanu dib isku xasuusino oo aan ogaano buri in siiniga Djibouti ay ka duwan tahay tawadama qaar maadaama ay tahay mid hawl gasha muddada ay jirto doorasho miisaaniyada ay ku shaqeysana waa mid si gaar ah loogu talagalay lacagaha xubnaha guddigaasi uu ka kooban yahay iyo hawlgallada joogtada ah ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka kadib marka guddiga madaxa bannaan ee doorashada ay siinigu uu gudbiyo go'aanadiisa ayaa ah waqtiga howlgalkiisu uu dhamaystirmayo wadaba isku geeyo hubaali waxa ay tahay go'aanada guddigu in ay qayb weyn ka yihiin ansixinta natiijooyinka kama dambaysta ah ee doorashooyinka doorashada madaxtinimo ee sanadkan 2016 ayaa ah
mid markii u horeysay ee taariikhda dalkeena ay u loolamayaan 6 murashax warkeenii xalayna waxaan idin soo bandhignay 3 murashax ee u horeeyay sidii ku xusnaydba qorituurkii qabsoomay annaka oo haddaba taasi raacayna waxaan caawa idin soo bandhigaynaa 3 murashax ee kale waxaana ugu horeyn ku soo dhawaataan taariikh nololeedka murashaxa madaxa bannaan jaamac cabdiraxmaan jaamac مرشح جامع عبد الرحمن جامع waxa uu dhashay 27 bishii Sebtembar 1952 waxa uu ku dhashay magaalada madaxda Djibouti waxaana dhalay marxuumkii Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Candhoole oo isagoo ah halgamaa u soo halgamay xornimada dalkeena waxaana geeriyooday marxuumkaasi 28 bishii Maars 1967 waxaana uu geeriyooday xornimada dalka الله أن حريستي عبد الرحمن جامع أو كما قاعد يرى عبد الرحمن عندولي وحو إفكا كتغي هويني يسيديد أبض أو كميدي هي مرشحني جامع عبد الرحمن جامع وحو وها حلقي وأبيه وغيريودي أفر إيو تبنجر وحانا سوكري سيهو يدي جامع عبد الرحمن وحا أولي جيب حاسوسني جري أبيه وحو نبوقني جري قبري أبيه والكاسي وسو أخريني جري فاتحدا وحبرشدي سا هو سيد دحي وحا وكوقاتي جمهورية Djibouti كهر أنت ونتجين دلكاسي فرنسيسكا أو نجلين جامعة لنا حقوق دا أما درواجا كدي مركي وشهادة سريع وكسوق عطي جامعة كتالة دلكاسي فرنسيسكا بشي ما يكون إيه سجال بقول يصدق إيه سديت تنكي مرشح عصي جامع عبد الرحمن جامعة وحا وكسر لامي دلكينا وحا ونهالكاسي وكفرت حفيسكا النوتارياجا أما النوتيركا جامع عبد الرحمن جامعة وحا سيدو كلا وفريد دوسي جوريي gaar ah oo lagu magacaabay PJ jaamac cabdiraxmaan jaamac oo isagu ah murashax u taagan doorashadani madaxtinimo ee 8 bisha Abriil ka dhici doonta dalkeena ee sanadka 2016 waxa uu u gudbiyay waraqadihiisa murashaxnimo wasaaraddaasi arrimaha gudaha 3 bishii Maars ee bishan aynu ku jirnay sanadka 2016 imikana waxaad ku soo dhawaataan taariikh nololeedka murashaxa shanaad ee ku soo baxay isaguna qorituurkii la sameeyay kaasi oo ah Maxamed Daawud Shixim oo ka socda USN watan qormo ka waramays محمد داود شحم وحو كميدك يهي لحظة مشرح او ترتمي دونتا دورشادة مدحوينة اي قبسومي دونتا 6 أفريل نقصو آدن محمد داود شحم او قدوميها حسبيغا خرامركا جيبوتي مركا مقعيغا لسو قابيو BDD هاديان كهالو تاريخ نولادكا محمد داود شحم وحاو داشي سندكو مركو كون سغال بقولي 48 وحاو كو داشي gobolka Tajuurax waxa wax barashadiisa hoose iyo dhexe ka dhigtay Djibouti sanadkii 1900 todobaatanki waxa uu ku biiray dugsiga gaarka ah ee hawlaha guud ee afka qaalaad loo yaqaan Travaux Publics sanadkii 1977 waxa uu soo qaatay shahaadada lisanska ee qaybta xisaabta ee kulliyadda sayniska ee Nice ee ku taala dalka Faransiiska sanad kadib 1977 waxa uu ku soo laabtay dalka markaas uu noqday madaxa shaqaalaha ra'iisul wasaaraha kadibna waxa loo xil saaray maareynta maaliyadda kadib tababar uu ku soo qaatay macbadka maamulka sanadkii 1987 waxa uu noqday agaasime ku xigeenka maaliyadda hase yeeshee khilaaf u dhaxeeyay jabhadda nooleynta midnimada iyo dimuqraadiyadda Fruud iyo xukuumadda hormuudka ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka Alxaaji Xasan Guuled Abtidoon ilaa naxariista janaa ka waraabiye sanadkii 1990 arrimo la xiriira khilaafkaasi Maxamed Daawud waxa lagu xukumay 5 sano xarig ah balse waxa markale dib loo xiray sanadkii 1997 waxaana la soo sii daayay bishii Febraayo ee sanadkii 2000 kadib heshiis nabadeed oo dhexmaray xukuumadda Djibouti iyo Fruud sanadkii 2002 waxa uu asaasay xisbiga horumarka Djibouti oo ka noqday madaxa xisbiga isla markaasina uu ku biiray mucaaradka UAD sanadkii 2003 waxa uu ka qayb qaatay doorashooyinka baarlamaanka maanta Maxamed Daawud Shixim oo ah madaxweynaha xisbiga BDD ayaa ahna musharaxa isbahaysiga USN waxa uu si rasmi ah sugu diyaarinaya doorashada madaxweynaha sidoo kale waxaad imikana aad ku soo dhawaataan taariikh nololeedka murashaxa lixaad oo isaguna ku soo baxay qorituurkii la sameeyay waxaana murashaxaasi uu yahay Maxamed Muuse Cali oo loo yaqaan Turtur oo ah murashax madax bannaan bal imikana hanula socono qormo ka waramaysa taariikh nololeedkiisa
murashax maxamed muuse cali oo ku magac dheer turtuur waxa uu ku dhashay Jabuuti sanadku markii uu ahaa 1950 bishii February 23 waxaana uu waxbarasho hoose dhexe iyo sare ku qaatay Jabuuti 1977 murashax maxamed muuse cali waxa uu waxbarasho jaamacadeed uga baxay jaamacadaha dalka Faransiiska gaar ahaan jaamacad ku taal magaalada Grenoble halkaas oo ka gaaray shahaado masterka dhinaca cilmiga dhaqaalaha kadib markii aanu qaadanay gobonimada sanadkii 1977 murashax maxamed muuse turtuur waxa uu dalka ku soo laamay sanadku markii uu ahaa 1979 xilligaasi waxa uu ka mid noqday jaamiciyiintii ugu horeeyay ee dhalinta yar ee dalkeena isla waqtigaasi waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee qorshaha iyo gudoomiyaha guddiga qaran ee barnaamijyada horumarka ee xafiiska madaxtooyada waxaana uu noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee dalkeena u qaabilsanaada hirgelinta barnaamijyada iyo mashaariicda horumarka dal murashax doorasho madaxtinimo maxamed muuse turtuur waxa uu isagoo oo dhalinyar uu xubin ka noqday siyaasiyiinta dalka waxaana 1985 isaga oo da'diisu ay tahay 34 jir uu ku tallaabsaday inuu ololeeyo horumarinta xuquuqda bulsho kadib markii dalkeena dastuurka cusub la meelmariyay lana ansixiyay 1992 iyadoo oo la balaariyay xisbiyada siyaasadeed waxa uu sanadkii 1993 uu ka mid noqday musharaxiintii la tartantay President Guuleed muddo kadib doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 1999 waxa murashax maxamed muuse turtuur uu ahaa agaasimihii ololaha doorashada madaxtinimo ee murashaxii asxaabta mucaaradka Muuse Axmed Idris balse sanadkaasi wixii ka dambeeyay murashax maxamed muuse turtuur waxa uu noqday shakhsi si gaar ah u shaqeysta waxaana sanadkani 2016 uu yahay mar kale inuu u taagan yahay inuu u tartamo ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkeena gabagabada warkeenan gaarka ah ee doorashada waxaan kaga hadlaynaa su'aasha ku saabsan codaynta sidee loo dhamaystiri karayaa isla markaasina maxay tahay tallaabada la qaadayo ee lagu suuro gelinayo hawlaha ku lug leh dimuqraadiyadda waatan falooyintaasi ka badan oo ka warmays doorashadu waxay ka mid tahay xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinku leeyahay codbixintu waxa ay ujeedadeedu tahay in ay siiso ahamiyad gaar ah qaraar loo dhan yahay iyada oo muujinaysa xaqiijinaysana inaanay qaraarku ka imanayn shakhsi amba koox gaar ah guud ahaan marka la eegana codbixintu amba doorashadu waxa ay tahay xaq oo qof walba oo muwaadin ah oo dawlad u dhashay u asbaxaya in uu ku soo doorto cidda amba shakhsiga matalaya haddii ay tahay ku baarlamaan amba mid hogaamiyihiisa xuquuqda codbixintu waxa ay sal u tahay dimuqraasiyadda waana mid muwaadiniintu ay ku dooranayaan wakiilkooga haddii ay noqoto heer qaran iyo dunidaba tusaale ahaan waxa aan ugu soo dhow doorashada madaxtinimo sidoo kale shacbi dal waxaa loo soo bandhigi karaa in ay cod u qaadaan mashaariic ku aadan hogaaminta bulsho sidii ka dhacday dalkeena sanadkii 2019 ee aftidii taas oo shacbiga dalkeena lagu weydiiyey ballaarinta xisbiyada siyaasadeed ee dalkeena waxaana waqtigaasi ay ahayd arrin muhiim ah waxaana ay ahayd tii ugu horeysay ee dalkeena ka dhacda sidoo kale ayada ayaa ugu dambeysay afti noocaas oo kala ah oo dalkeena soo marta C'était la première d'ailleurs et la dernière fois qu'on avait eu un référendum. iyada oo ay codbixintu ay tahay habka shakhsigu uu ku cabirayo rabitaankiisa si ay doorashadu ay u noqoto mid xaq ah waxa u dhigan dalkeena iyo dunida dhammaanteedba xeerar u yaala doorashooyinka xeerarkaasi oo ka mid yahay dastuurku iyo in kale oo gaar u ah doorashooyinka Continue dans la loi relative dans la loi numéro 1 haddii aad cod ka dhiibanaysid waxaa loo baahan yahay inaad ka soo baxdo dhowr qodob oo ku dhigan xeerasha u yaal doorashooyinka shakhsi walba waa inuu ahaado muwaadin reer Jabuutiya daadiisuna ay ka weyn tahay 18 amba ay tahay iyo in uu isdiiwaangeliyo intaasi ayaa ashruudaha laga sugayo muwaadin walba oo raba in codbixinta uu ka qayb qaato waxa aanu ku jirnaa waqti qaybinta kaarka codbixintu ay socoto dalkeena hadda sidoo kale waxaa jira shuruudo kale oo ku dhigan xeerasha u yaal doorashooyinka ee dalkeena haddii ay noqoto madaxtinimo tusaale ahaan waxaa loo baahan yahay in murashax walba daadiisu ay ka weynaato 40 sano amba ay tahay waxaa kale oo looga baahan yahay in murashaxu uuna lahayn waraaqo kale oo dal iyo sidoo kale waxaa jira in shakhsi walba oo murashaxa shuruudo kale oo dheeraad ah oo looga baahan yahay sida lacagta 5 malyan ee lagu shubo taleesorka jamhuuriyadda taasi oo murashaxa loo celiyo haddii uu helo cod ka badan 10%. shuruudahaasi oo dhan waxa ay yihiin kuwa golaha dastuurigu iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay hubiyaan ka hor doorashooyin walba
que les ministères de l'Intérieur, aussi bien que les conseils constitutionnels, vérifient bien avant la tenue des élections présidentielles. xeerarkaasi uu soo sheegay gariiqaanku waxaa kaloo soo raacaya xaaladaha guud ee asmaxaya in la qabaqaabin karo doorasho kuwaasi oo ay ka mid yihiin in dalku ku sugnaado jawi nabadeed in uu ka caaganaado masiibooyinka dabiiciga ah ee caqabad ku noqon kara isku gudubka nasiib wanaag taariikhda dalkeena weli kama ay dhicin xaalado noocaasi ah oo baajiyey ama dib u dhigay doorashooyinkii aanu soo marnay bien sûr une sécurité heureusement c'est pour ça que d'ailleurs l'état djiboutien doorashooyinka waxaa horta loo baahan yahay amni waana ta keentay xukuumaddu inay qabanqaabiso gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka haddaba waxaa loo baahan yahay xisbiya siyaasadeed iyo taageerayaal doorkooda ka ciyaara ololaha doorashada iyo dooda siyaasadeed ee tv-ga iyo weliba kulamada isku soo baxa kuwaasi oo dhan ayaa waxaa loo baahan yahay inay tixgeliyaan xeerasha u yaal dalkeenna ee doorashooyinka qabanqaabada doorashaduna waxa ay tahay mid wasaaradda arrimaha guduhu ay diyaariso haddii ay noqoto qalabka xafiisyada codbixinta iyo goobaha loogu talagalay intaba ee caasimadda iyo gobolada dalka gudihiisa iyadoo oo la kaashanaysa guddiga qabanqaabada madaxa bannaan ee doorashooyinka ee seni aussi bien toutes ces structures qui dépendent, qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui se retrouvent aussi bien dans la capitale que dans la région de l'Intérieur. xeerarkaasi aadka u ballaaran ayaa ah qorshe qoto dheer oo ku yaala dastuurka iyo xeerka doorashooyinka u yaala oo ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in dhammaan xeerarkaasi ay asmaxaan in ay doorashooyinkuna ay u dhacaan si xaq ah daawadayaal waa nagaynta warbixii dalka ee gaarka ah ee doorashooyinka intaan warkani kula mid aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafinaa nabadgeliyo iyo ammaan Allah